maanta Muuse Biixi wuxuu soo qarxiyay heshiiskii dhexmaray asaga iyo Itoobiya. marka Itoobiya arrintaa waa laga adkaaday inaga xaggeena uu ka fulay. Muuse Biixi wuxuu fashiliyay xog aan islahayn kumanaan kun oo doolar lagu heli karaa ama lagu bixin karaa helisteeda ayuu si fudud oo aan la filayn u sheegay. shirka Djibouti markii aan tagay iyo markii aan joogay waan u sheegay inaan January first-keeda la balansanahay abiy washirale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي سoo dhawaada walaalkiin Mr. Kilmataan oo idin la xilli kasta idinta wanaagsan haddii ay markaa ku horeyso aad soo booqato waad ku mahadsan tahay booqashadaada customer care wada tahayna waad ku mahadsan tahay joogitaanka fadlan video haddii aad ka hesho like saar sina share garay haddii aad maqashay hebel waa la soo qarxiyay maanta Muuse Biixi wuxuu soo qarxiyay heshiiskii dhexmaray asaga iyo Itoobiya. Muuse Biixi markii uu xilka waayay warbaahinta ayuu booqday si fiican oo qurux badan ayuu u nafisay video soconay muddo 1 saac iyo 20 daqiiqo ayuuna soo duubay. Muuse Biixi wuxuu fashiliyay xog aan islahayn kumanaan kun oo doolar lagu heli karaa ama lagu bixin karaa helisteeda ayuu si fudud oo aan la filayn u sheegay. Muuse Biixi wuxuu sheegay heshiiska asaga Itoobiya in uu fashilmay albaabadan loo laabay sidoo kale wuxuu sheegay heshiiskaas in ay hor istaageen Afrika iyo Carabta iyo wixii kale oo danaha Soomaaliya aadka u taageeray waa kan asagoo hadlaya. heshiiska waxa ka hor yimid ururka Afrika iyo Carabta oo ilaa dawladda haweeneysa Mareykanka kale iyo u qeyshay waayo majority-goodii Soomaaliya ee markay abatay way dhageysteen wixii Carabta ku jira oo dhan baa horta raacay Carab sheeganayay dabeetana Afrikadii kalena waa laga howlgalay oo Masar xoogaa meesha hogaaminaysa oo Itoobiya codkii Afrika hor joogsay marnaba isma lahayn Muuse Biixi ayaa heshiiskan ka hadli doona ama warkaas soo hadal qaadi doona sidaan fududna u sheegi doono iyadoo muddada ay ka soo wareegto wax yar ay tahay. Itoobiya wuxuu sheegay in albaabada loo laabay oo warkeedii la soo gabagabeeyay. Annagu hadda shakiyaab nagu jiro waxaan islahayn Itoobiya haddii ay Soomaaliya wax ka weyso ama ay soo kala fariisaa oo Somaliland aqoonsigeeda iyo barnaamijkeeda ay sii wadaa laakiin Muuse Biixi wuxuu sheegay in arrintaas ay fashilantay albaabadana loo soo laabay iyagana ay diyaar ahaayeen in heshiiskaas ay wada galaan laakiin ay ka socon weysay dhanka Itoobiyana ay garowsatay in dawladda kale la aqoonsan yahay ay Soomaaliya tahay aysan Somaliland waxba socodsiin karin. sidoo kale waraysiga asagoo dheer Muuse Biixi wuxuu ku sheegay in maalinkiisii ugu horeeyay ee uu shirka Djibouti u tagay in ay ogaayeen dawladda Soomaaliya iyo Djibouti shir in uu leeyahay dawladda Itoobiya laakiin aan marnaba la weydiin karin ama la soo hadal qaadi karin shirkaas ajandiisa iyo waxyaabaha in laga hadlo ay muhiim ka tahay taasna aysan macquul ahayn. waa kan shirka Djibouti markii aan tagay iyo markii aan joogay waan u sheegay inaan January first-keeda la balansanahay abiy washirale way ogaayeen baa qolada beesha u joogta way Soomaaliya iyo Djibouti waan u sheegay shirkaygana waxaan ku adkaystay in la hore ugu dhameeyo aan maanta la dhaafay saasaa loo soo koro dadtana waan tegey oo weliba arrintan waan kala marka iyadoo way ogaan inaan tagayo shir aan leedahay dee malaha cidna ay odhanaysa maxaad jintaan ugu sheegi weyday taas dee malaha mid macquula dadku isma quraan. sidoo kale Muuse Biixi waraysigiisa waxa ka mid ahaa ama uu sheegay in haddii heshiiskaas lagu guuleysan lahaa ama qorshahaas uu hirgeli lahaa in Itoobiya qorshaheeda uu ahaa in ay soo guuriso caasimadda Addis Ababa ayna keento Saylac ama Berbera sida afkiisa uu ku sheegay madaxweynihii hore ee Somaliland Mr. Muuse Biixi. cid kale uma joojiseen in xarunta laga raro soo barbaskarinay haddii arrintaas ay socodso ay maqal weyn haddii sina xarunta laga raro iyo barbarkiin qaarkood marka Itoobiya arrintaa waa laga adkaaday. si kastoo ay ahaataba Muuse Biixi wuxuu sheegay in dawladaha Carabta iyo Afrika iyo wixii caalamka jooga oo dhan iyo Soomaalida qaylideeda ay ka awood badiyeen in Itoobiya ay wado ama si dardar leh ay kula wareegto dhulka Soomaalida ee Saylac taas oo Soomaalida ay awood u sheegteen si fiicanna ay ugu dhiidiyeen in ay
iyagoo nool dhulkooda la qaato. Arrintaasna waxay ku soo dhammaatay fashil iyo in ay horey u socon weysay. qof kasta oo danaynaya arrimaha Itoobiya iyo Somaliland ama heshiiskaasi barnaamijkiisii maanta madaxweynaha Muuse Biixi wuxuu sheegay in arrintaas albaabada loo laabay mar dambana aan la soo hadal qaadi doonin in Somaliland iyo Itoobiya xiriir ayaa ka dhaxeeya ama wada heshiisa ka dhaxeeya. Itoobiyana ay sugi doonto jaanis kale oo soo mar oo ah in Mareykanku uu aqoonsado Somaliland waa hadiiba ay dhacdo waay. taasna ma dhici doonto sababtoo ah Mareykanka ma aqoonsan karo keligiisa in Somaliland dawlad ka madax bannaan Soomaaliya ay noqoto. haddii ay dhacdana waa isla joognaa sida hadda Itoobiya loogu diiday ka daran ayaa loogu diidi doonaa cid u bareeri karto in maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya la aqoonsado. shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxay isweydiinayeen arrinta Somaliland iyo Itoobiya, laakiin Muuse Biixi maanta wuxuu si faahfaahsan oo la fahmi karo u sheegay in arrintaas ay soo dhammaata ama arrinkii badda ayaa laga hadlay. arrinkaasna uu socodsiin waayey Master Abiy. si kastoo ay ahaataba arrintaas waxay ku soo gabagabooday isfahan la'aan iyo in ay Itoobiya socodsiin weysay wadahadalkii ay kula jirtay Somaliland. hase yeeshee beddelkeed waxay Soomaaliya ka heshay baddii ay raadinaysay, inkastoo aan weli lagu dhawaaqin sida loo qaadan lahaa ama loo siiyey. weli mugdi badanna su'aalahaas ay ka taagan yihiin. Soomaali badan waxay isweydiinaysay wadahadalka Somaliland iyo Itoobiya ma sii socon doonaa haddii ay isku boodaan ama ay kala tagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. laakiin Muuse Biixi wuxuu sheegay in wadahadalkaas albaabada loo laabay mar dambana aan soo hadal qaadi doonin. Itoobiyana looga adkaaday in ay wadahadalkaas sii wado, iyadoo la yaabtay Finland ay ku noqotay in Itoobiya Afrikaantii iyo Carabtii oo dhan ay ka soo horjeestay macal qaylada Soomaalida, taas oo ku noqotay ulaas diblomaasiyadeed midii ugu weyneed oo ay dawlad la kulmi lahayd. arrintan dad badan oo Soomaaliya ayaa aad u faalaynaya ama u faraqaynaya ama ka hadlaya. qof walbana ra'yigiisa aragtiisa ayuu ka dhibinay, laakiin anigu ra'yiyan waxaan islahaa Muuse Biixi xogtan waa uu qarin doonaa oo waa uu dabooli doonaa, sababtoo ah wuxuu islahaa maadaama xog xasaasi ay tahay sidan fudud ayuu ku sheegi doonaa. marnaba ma sugeen oo isma lahayn Somaliland iyo Itoobiya in ay wadahadalkaas albaabada loo laabay oo lagu kala tegay, warkiisana uu soo gabagaboobay. waxaan ahay Mr. Kimatani. haddii tay markaa ku horeysana soo booqato booqashada ku maasantahay subscribe haddaa ii saartid aad iyo aad u maasantahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.